ciirood mahadsan tahay maanta aqalka golaha guurtida Soomaaliland waxa muddo kordhin u sameeyay aqalka golaha wakiilada Soomaaliland waxaana ay go'aamiyeen in doorashadu ay ku qabsanto 12ka bisha 12aad ee sanadkan gudihiisa xisbi ahaan saad u aragtaa anagu horena waan u sheegnay haddana waan ku celinaynaa waan soo dhaweynaynaa in doorashada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka la qabto 2019 ma taageersantihiin go'aanka golaha guurtida in la qabto doorashada 2019 waa soo dhaweynayna waxa jiray caqabado ka taagnaa qabsoomida doorashada oo ay ka mid yihiin commissionku markaad eegtid dhinacan go'aanka ay gaadheen golaha guurtidu ma isleedahay doorashadu ku qabsoomaysa arrinta waxaan u aragnaa caqabado hadda in la qaado commissionku waa ka mid caqabadaha commissionka wadda hore u sheegay oo tahay waxa ka mid ah ugu muhiimsanaa caqabadaha ay sheegeen yaani doorashadu qabsoomeynin saami qaybsiga kuraasida golaha wakiilada oo gobollo dhambe dareen ka qabaan sheegeen inaanay ka qayb galaynin waxa ka mid ah xeerkii oo diyaar ahayn waxa ka mid ah arrintii koontada dumarkii dadka laga tiro badan yahay waxa ka mid ah miisaaniyadii waxa ka mid ah commissionka inta badda waa loogaa markii la kordhinayay marka dad si loo qaadi lahaa waxay u baahan tahay in talamid aysan lagu qaado hadda la yiraahdo gudoomiye caqabada ugu weyn ee maanta doorashada ka jirta waxa weeye komishanka doorashooyinka xukuumadda iyo labada xisbi ee kulmiye iyo waxay taagan yihiin gudidan doorashooyinka ayaa maanta noo qabanaya doorashada idinkuna waxay taagan tihiin noo qaban maayo gudidan doorashooyinka ee taagan waxaanay ku doodayaan haddii uu wadani doonayo in la kala diro gudida doorashooyinka hanaanka ay tahay haw maro oo xubin ha u dacweeyo idinku maxaa talaabada u sameyn weydeen si aan waqti u lumin marka xeerka doorashada golaha wakiilada soo akhriyo kuma taalo xubin loo soo dacweeyo komishanka waa laga dacwoon karaa waxaana ku qoran tahay xeerkaana u raacnay procedure-kuna waxa weeye madaxweynaha loo qoro madaxweynuhuna guddi u saaro madaxweynuhu guddi ma saarin ilaa hadda marka procedure-ka sax waa kaas ee ka sheegayso maaha laakiin xisbiyada kalena mowqifkaasi taagan yihiin idinkuna kana taagantiin kiineeba saxsan oo xeerka raacaya annahay dhageysan jireen ha dhageysan soo baadhato idinku xubintiina gudida doorashooyinka ma la bax kartaa anagu xubin gaar aan u dacweynay ma jirto commissionka oo isku dhamaan hal bedelo taas aan u taaganahay xubintuna waa ka mid todobada aan leenahay hal bedelo waxa jira dhinacii saami qaybsiga oo iyadana dhibaato ay ka taagan tahay xisbi ahaan arrintaas saami qaybsiga sidaad u aragtaan anagu maalintii waxaan soo jeedinay maadaama doorashooyinku dib u dhacayaan halkan u arkaynay waxa in la sameeyo census ama tirakoob si dadku uu kala baxo oo murankan badan gobolada ka taagan uu soo afjarno tirakoobkaasi laakiin maanay muddo iyana sii qaadanayn maalintii aan soo jeedinay dee waxay ahayd sanadkii hore oo haddii la qabto waaba iska dhammaan lahayd sanadkii hore dhan ayaa joogay kan imika la kordhiyey baa jooga marka anagu xalka wanaagsan kaasaan oranay dee xalalkana waa iman karaa arrin kale ayaa gudoomiye jiro oo ah golayaasha deegaanka oo iyaguna muddadu ay kaga dhamaanayso horaanta bisha afraad ee sanadkan isla markaasna aanay golaha guurtidu maanta muddo kordhin u samaynin xisbi ahaan mowqifka golayaasha deegaanka aad ka qabtaan muxuu yahay anagu waxaan doonaa golaha deegaanka iyo golaha wakiilada in mar la wada qabto marka waad ka soo horjeedaan miyaa in la kala diro golayaasha deegaanka anagu waxaan rabnaa in la doorto waayo dadkii doorashada rabay waa kuwa boorarkooda halka ku dhegsan maxaa dib loogu dhigayaa waayo magaalada Nairobi waxaad kula soo kulantay deeq bixiyaasha arrimaha doorashooyinka Soomaaliland ka caawin jiray maxaad kala soo hadashay guud ahaan waxaan kala soo hadlay arrimaha Soomaaliland haday tahay kaalmada la siiyo Soomaaliland haday tahay arrimaha doorashada haday tahay arrimaha xuquuqul insaanka ee taagan hadda haday tahay iyo dhamaanba isbedelka weyn ka socda gobolka haddii yahay mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid bulshada sidee u arkaan dib u dhaca doorashooyinka Soomaaliland beesha caalamku guud ahaan waxay isku waafaqsantay in doorashooyinku dee waqtigooda ku qabsoomaan laakiin waxay taageersan yihiin in 2019 la qabto doorasho gudoomiye maadaama halka la kala taagan yahay doorashada inay qabsoonto loo baahan yahay xisbi ahaan maxaad xal u aragtaa anagu xal waxaan u aragnaa markii horena waan u arkaynay in dhammaan caqabadaha commissionka ugu horeeyo laga wada hadlo la iska afkarto laga heshiiyo aad iyo aad baad mahadsantahay gudoomiye waan kaaga mahadcelinaa waraysiga maanta